weliga inta miraayad hor istaagtay ma dareentay inay wax ka dhiman yihiin qaasatan jirkaaga xitaa haddii dadka kale ku arkaan qof normal ah caadi ah qurux badan ama lagu daydaba dabcan waxa ay soo wacay nin dhalinyaro ah maalmo ka hor ninkaas oo anigu qaasatan ka aragtideeda aan u arko in caafimaadkiisa uu tamaam yahay jirkiisa uu dhisan yahay bal aan ku dhigi karo 90% uu iga jir qurxan yahay xabadkiisa haddii aad dhihileys baagiisa haddaad dhahda gacnaha six baagiisa nin diyaarsan dabcan dhammaantiina laga yaabo inaad garanaysaan laakiin magaciisa aanan meeshan ku sheegaynin yaa wuxuu i weydiiyey coach su'aal baan qabaa markaas waxaan dhahay waa maxay su'aasha markaas wuxuu ku dhahay coach wax walba haddii aan sameeyay jirkeyga inaan miisaan ku daro waan kari waaye body dysmorphia insha Allah ta'ala maanta waxaan ka hadlaynaa arin aad u culus dhalinyaro badanna ay la dhiban yihiin bal dhibaatada ugu weyn ee tahay inaysan haddana war iska haynin adiga i daawanayana waxaa macquul ah inay dhibaatadaas ku hayso bal maanta liiskan iska fiiri haddii aad isku dhex aragtana dabcan xal aniga ku haya marka hore body dysmorphia waa xaalad caafimaad qofkana inta badan aad ugu mashquulo waxyaabaha yaryar ee jirkiisa ka dhiman qof dhamaystir la'aan had iyo goor dareema qof arka in jirkiisa mahma wax walba haddii uu sameeyo sidii asaga uu rabay uusan gaaraynin tusaale inaad isku aragto inaad tahay qof lafa yaryar qof madow aanan qurux badnayn qof dadku kale ay ka caqli badan yihiin dabcan adigu weelkaaga maba buuxsamaba daraasad laga sameeyay yaa waxaa lagu ogaaday in inta badan dhalinyaradu ay ku sababto depression anxiety stress kama dambeenna ay dadku ka dhex saarto maanta waxaa jiro kumanaan dhalinyaro ah oo khaasatan body dysmorphia uu ku qasbay inay kama dambeen cirbado ay jirkooda ku duraan tusaale ahaan qofka marka uu arko wax walba haddii uu sameeyey inuusan jirkiisa dhismaynin qanaacadana ay ku yaraato waxaa kama dambeen uu lugta la galaa halaag iyo baaba keeni kara inuu cirbado inuu steroid qaato amaba kaniiniyo tiro badan oo uu arko isagu in uu jirkiisa wax ay ka bedelayaan kuwan testosterone boosterada la dhaho beerkiisa uu la dhaco kun jeerna waa idin sheegaa kaniinigu wuu ka saameyn badan yahay wuuna ka dhib badan yahay cirbadda waxaa macquul ah inay dhiigga raacdo laakiin kaniinigu beerkaaga yay shaqo badan u dhiibaysaa gabdhuhuna khaasatan waxay ku sababtaa ama ay gaarsiisaa kama dambeen inay intay baxaan jirkooda qalqalaan maqaarkooda dildilaaciyaan iskuna dayaan quruxdii ka dhidhnayd ay raadinayeen in ay raadiyaan laakiin ogow xitaa intaas haddii la sameeyey stiil qaybtii dhidhnayd waa la keeni la'yahay waa xaalad dagaal maskaxeed ah uu qofku maxbuus u yahay muraayadiisa dareemid addoonnimo daan dabagaali aanan la gaaraynin quus iyo farxad kaa raagta adigu waxaad aaminsan tahay maalin bay iskugu katoosi doontaa laakiin waa maalin aanan imaanaynin xalka muxuu yahay marka halka ugu horeeya waxay dhahaan open up you don't have to fight alone isku day inaad isfurfurto isku day inaad dadka kuugu dhow aad arrinka la wadaagto dabcan horeen kuugu sheegay xaaladdan waa xaalad caafimaada xaalad iska caadiya ma ahan inaad bodigaaga ka shakiso inaad qanaaco la'aan noqoto inaad mar walba dareentid in ay jirkaaga wax uu ka dhiman yahay in khaasatan marka ay kuugu khasabto ama aad isdareensiiso inaad jirkaaga dildilaacayso khaasa gabdhaha haddii aad dareento inaad isqashidna aad rabtid isku day inaad qof la tashato isku day inaad qof la wadaagto wiilasha inta aadan testosterone booster kaniiniya I know dhalinyarada inta badan dalka joogta ama Soomaaliyeed way adag tahay inay cirbado dhankeeda aadaan laakiin waxa u sahlan inay kaniiniya la khalaqaan waxaan ku dhihi lahaa isku day qof ku dhow inaad la tashato oo aad u furfurto una sheegto haddii aad therapy heli kartana dhakhtar therapy ah oo aad arrinkan u bandhigatana iyaduna ceeb maahan u bandhigo isku day adigu inaad isfurfurto dadkana aad arrinkan la wadaagto si lagu caawiyo qodobka labaadna mediaha dib uga deg maalin walbo waxaan isbarbardhig ku sameynaa dad aad onlinekaas ka baratay dabcan aadan aqoonin xataa qofkan muxuu ku sugan yahay waxaan rabaa inaan mid idin sheego dadka inta badan idin soo hor istaaga anigu aan kow ka ahay waxaad ogaataa inta adigu aad culeys xambaarsan tahay aniguna waan xambaarsanahay dhalinyaro mararka qaar waxaa arkaysaa erayada qaar ay adeegsanayaan markaad fiiriso khuus ay ka dhex muuqato hebel adduunka u kufay ma aha saas nin walbo adduunkan joogo nusqaanta nimcada uu haysto wuu leeyahay nin oday ah yaan salaada cisho iyo maqrib inta u dhaxaysa aan sheekaysanayna wuxuu iga sheekeynayay wiil yar oo dhalinyaro ah oo dalkan Mareykanka maanta looga xiray 30 sano miyaami 34 sanana xabsi lagu xukumay adigu bal sabiro nin dhalinyaro ah Afrika laga soo waday asi aabihiis ay isla imaadeen Mareykanka odaygu uu aaminsanaa wiilkaagu ku garab istaagi doonaa kadibna xaaladiisa ay ku soo biyo shubatay asoo 20 sano maanta jira inuu 34 sano xabsi galo bal sabiro
wuxuu xabsi ka soo bixi doonaa wiilkaas 60 sano ayadoo wax yar ay uga dhiman tahay kaaga sii daran aabihiis waa tabliiq waa nin inta badan diinta u taagan mala dhihi karaa aabihiis yaa nin xun ahaan jiray maya nimco walba aad haysatid nusqaani leedahay imtixaankana waxaad ogaataa dadkoo dhan way wada marayaan waxaa rabaa marka inaan ku dhaho isku day social media waxa aad ka arkaysid inaadan aaminin inaadan qalbiga ku qaadanin break ka qaado scrollingkan tirada badan aad samaynaysid space isa sii bal adigu kaligaa nafsadaada bal jaanis sii fiiri nolosha banaanka social media ka ee dadku ku nool yihiin bal soo fiiri qodobka afraadna naftaada la saaxiib ka soo qaad qof aad jeceshahay maanta oo dhibaatadan dareemaya oo kuu soo bandhigtay aad adduunka ku jeceshahay hooyada kuu timid arrimahana kuu soo bandhigatay sida u caawin lahayd naftaadana way ka soo sukaysaa waxaad ogaataa haddii berito aad naar galaysid naftaada kula geli doon haddaad qabriga galaysid naftaada kula geli doon haddaad janno shaqaysatidna naftaada kula geli doonta naftaadu meel ay kaaga haraysa ma leh depressionka iyo anxietyga iyo stresska qofka ku haysana waa naftaada soo marka naftaada la saaxiib hal midna ogow inaad naftu miraayadda aad hor istaagto sida dadka qaar aad been u sheegto wax macno weyna ma samaynayso waxaanaad samayn kartaa iyo derbigaanaad ka boodi kartaa iyo waa awoodaa iyo isdhiirigeli iyo ma ka wado waxaan ka wadaa nafta runta u sheeg runta ku dhaq sidoo kaleetana u naxariiso marna naftaada waa la cadibaa marna waa loo naxariistaa haddii naftaada aad la saaxiibto wax badanaa noloshaada iska bedelaya midda kale mararka qaar maskaxda haddii negative-ka kugu soo tudo ogowna maskaxdu negative-ka ku badan waana normal dadkoo dhan cod waxaa jiro oo aananba aamusayninba aanan la aamusin karin sidoo kale laga yaabo dadka qaar inay ku dhaca markaad negative maqasho ama wax negative kugu soo dhaco is-ilowsi mali is-ilowsiin kara way adag tahay waa wax kula nool 70% waaba negative wixii maskaxda soo fasaxdo waxaa la rabaa markaa inaad su'aal dul dhigto markaad su'aal dul dhigto jawaabta waxay keenaysaa dhanka positive-ka inaad u dhaqaaqdo tusaale ahaan haddii ay kuu soo bandhigto kaleete arrin aad dhibsanaysid su'aal weydii waxaas ma sax baa mise qalad ogow waxaa ogaanaysaa marka aad cod ahaan isku weydiiso waxa kuu soo baxayo inay sax tahay iyo inay qalad tahay mar walba maskaxdu waxay qaadanaysaa codkaas afkaaga ka soo baxayo su'aal duldhig mar walba oo negative uu kugu soo dhaco dabcan qof positive ku noolaan karo oo noloshiisa inta ka dhiman positive ahaan kara ma lahan laakiin su'aasha awareness-ka ka mid tahay su'aal duldhig qodobka ugu dambeeyana perfectionism-ka ka fogow waxaan xasuustaa markaan social media-han aan bilaabay halkii video waxaan samayn jiray hal video 3 saacadood ugu qaadan jiray maanta waxaa macquula video dhan oo YouTube oo dheer inaan 20 daqiiqo ku sameeyo li'annahu tirtirida tirada badan yacni aamin darada aan nafteeda ku qabo iyo in aan raadiyo maanto dhan videoga meesha uu ka xun yahay oo haddana kan kale aan isku dayo inaan saxo markaan sax isdhahana mid kale aan sii haleeyo waxay ahaan jirtay saakol aan ku wareego oo aan aad ugu dhibaatoon jira laakiin kama dambeyn waxaa ogaaday dadku waxa ay raadinayaan inay organiga tahay qofku inuu rabo yacni saxda aad u nooshahay inuu kula arko kadibna asigu go'aan qaato haddii noloshaada mid lagu dayan karo ee tahay ama mid aan lagu dayan karin in ay tahay perfectionism-ka waa cadow curyaamiya horumarkaaga noloshaada halka aad ku socoto wixii aad samayn lahayd perfectionism-ka wuxuu keeni karaa 60 sano adoo gaaray 50 sano adoo gaaray inaad dib uga shalayso waxyaabo badan oo aad shalay qaban kari lahayd videogana intaan kusoo gabagabeynaa oo walaalka ko sabriya haddii body dysmorphia aad la dhibaataysan tahay dabcan commentiga nagula wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu